السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيخ waxaa noo soo dhow maalinta ciida. salaada ciida wax ma nooga tilmaami kartaa? الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، maalinka ciida waa maalin qaali ah. Muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala laba maalmood oo aada u qiimo badan ayuu siiyey. labada maalmoodna waa shukri ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa lagu shukrinayo. ciidna ciidulfitri baa la dhahaa, ciidna ciidul adxaa baa la dhahaa. ciidulfitri waxay dhacdaa bisha ramadaan kadib, ciidul adxaana waxay dhacdaa acmaasha xajka marka la guto kadib ay dhacdo maalinka 10 dilxija ayay dhacdaa. marka ciidahaas waa ciida muslimiinta ay leeyihiin, sida xadiiskii cuqba ibn caamir aljuhani fi musnad imaam axmed gayri ku sugnaa, nabigu sala allahu alay wasalam uu yidhi yowmu alfitri wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahla alislaam wahiya ayaamu aklin wa shurb. acmaasha maalinka la qabto waxaa ugu horeeya ugu qiimaha badan waxaa weeye uguna jaliilsan baa la dhihi karaa salaada ciidda markaa iyada la tukanayo. walidaalika nabigu sala allahu alay wasalam waatuu leeyahay ma aragtay waxa aynu camalkeena ka bilaabayna waxaa weeyaan waa inaan tukanaa. awal maa nabda'u bihi yowmana hada an nusalli. marka salaada aad iyo aad bay muhiim u tahay maalinka ciidda ah in markaa iyada lasoo xaadiro oo la tukado oo maaragtay dadko dhan ay kasoo wada xaadiraan. nabigu sa uu amri jiray in laiskugu yimaado aan loo kala maqnaan. xadiidka umu catiya radi allahu canha, nabigu sala allahu alayh wasalam waxay leedahay umu catiya, xadiiska bukhari muslim warinahayeen, kunaa nu'maru an nakhruja ila asalaa, salaada ciidda inaan usoo baxna ayaana la amri jiray. wa nu'maru an nukhrija alcawaatiqa wadawaati alquduuri yashhadna alkhayr wadacwat almuslimiin, waxaana la amri jiray inay soo baxaan xataa gabdhihii guryo joogta ahaa ee maqbiyada ahaa, kuwii caadada qabay. nabigu sal alla alay slam wuxuu amri jiray tii aan jalbaab haysan saaxiibteed inay kasoo qaadato. marka waxay tusaysaa salaada ciidda inay aad iyo aad muhiim u tahay. fuqahada say u badan yihiin waa sunna mu'akada inay tahay. culamada qaarna waxay dhahaan waa waajibba, oo xadiiska mucadiya oo kale ay u daliishadaan, waxay dhahaan waa fard cala alcayan bay culamada qaar ay markaa iyada dhahaan. marka salaada ciidda aad bay muhiim u tahay. imaamkii baa dadkii markaa iyada tujinahaya, jamaaca ayaa markaa iyada lagu tukanahaya. kayfiyada salaadaha bay la mid tahay, 2 ragca ayaa la tukanahaya. takbiiraad ziyaada ay leedahay, takbiiraatul ciid la dhaho, oo ma aragtay ragcada kuwaad 7 mar la dhihi allahu akbar, iyo ragcada labaad oo 5 jeer la oranayo allahu akbar. imaamka iyo maamuumkaba markaa iyada ay oranayaan. بارك الله فيكم وأحسن الله إليك وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.